saynisyahanada muslimiinta waxaa ugu caansan al-Khawaarismi. Haddaba waa kuma al-Khawaarismi? Maxamed bin Muusa al-Khawaarismi wuxuu ahaa saynisyahan muslim ah iyo cirbixiyeen. Waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 780 miilaadi, wuxuuna geeriyooday markay taariikhdu marisay 850 miilaadiga. Wuxuu ka shaqeeyay guriga xikmadda ee Baghdad xilligii Khaliif al-Ma'muun. Wuxuu guulo badan ka gaaray waxyaabo badan: turjumida qoraal gacmeedyo badan, cilmi baadhis sayniseed iyo falsafad, daabacaadda waraaqaha asalka ah, qoritaanka buugaag badan oo xisaab ah oo ugu muhiimsan yahay buugga al-Mukhtasar fi xisaab al-jabra wal-muqaabala, buugga xisaabinta aljabrada iyo isku aadanaanta. buuggan oo soo bandhigaya sida loo xaliyo isla-eegyada toosan iyo afar-geeslaha, isaga oo si weyn uga qayb qaatay horumarka xisaabta. waxa uu qoray buug la yiraahdo Arithmetic in Indian Numerals. sida oo kale wuxuu leeyahay buugga lagu magacaabo Image of the Earth, kaasi oo ku soo bandhigayo si sax ah Aasiya, Afrika iyo meelaha ku teedsan badda Mediterranean-ka.